السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوديال كسر دواد ورك أستان سبورتس قدام ورك عاد كداون دونتان وحا كميدا كوحدة جزيرة سبورتس كلاب وصاب بندقت لبا صحيح أو كوحدة كعصب أندريا بيرلو أو كهدلي كلنك يوفنتوس أياكس دحمري دونا عياريان كوتينيو بيني إنو برشلونة isaga tagi doono كيفين دي بروين oo loo gacan haatinayo horyaalka Spain dagay Pogba oo United ka doonaysa inay ku hayso garoonkeeda Old Trafford qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba dhameystirkooda intaasi aad daawateen waxay ahaayeen warka ugu door karoon Astaan Sports imikana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran kooxda kubadda cagta Jazira Sports Club oo kamid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay laba xidig oo kooxda ku cusub kuwa oo ka ciyaara garabka iyo qadka dhexe warbixin guud ahaan ku saabsan kooxda Jazira waxa dabcan inoo soo gudbin doona hadaafo kooxda kubadda cagta Jazira Sports Club oo tababar si gooni ah ugu sameeyay koor kulankooda ugu dambeeyay wajiga hore ee horyaalka heerka koowaad ee dalkeena Soomaaliya ee Somali Premier League 2018-19 ee la qaadan doonaan kooxda kubadda cagta LLP Kenya ayaa waxaan ku booqnay xarunta ee ku tababartaan kooxda kubadda cagta ee Jazira Sports Club waxaan la hadalnay qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Jazira Sports Club mahad oo kamid ah lafdhabarada qadka dhexe kaga ciyaara kooxda kubadda cagta Jazira wuxuuna ii sheegay in ay rajeynayaan in ay guul ka gaari karaan kooxda kubadda cagta ee LLP Kenya oo aydan khasaare kala duwan ay ka soo gaartay kooxaha ka ciyaara horyaalka heerka koowaad ee dalka waxaan hadaladiisa kamid ahaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قاعد معنا المهضلة كمية قاعدة كبد عقد جسيرة كاس مقدس يونايتد بروح عن عيالنا جيم كنا قدام بي وريق هوريالك وجي لبعض هوريالك وحنرجينا إن شاء الله إن نقول قارنا قاعدة كبد عقد جيو أو كمية هير الكوبات السنة كان مقدام هوريالك عن كوسبنا وسنة كسي هوريا عن عياليني وح عيالنا سداد كلن سدا شن عيارود أنا قلب بدي الله كمية عن بدني حمد كمية براجع قالنا وأنا رجعنا دو إلى رحلة كده إن كلنا كان لإما نستهدف بعض سان أطلقنا تبني بعض ومن قناة كوحة وصل هوريالك وحول بوا قرشي له كحرين هساعات استماع كان وحى صنع فرصة إنه وقف عناي صابته وحى عيالنا الجمعة اللي سودا فايتي كوريسي على عيالنا كوحة MCC نقول دري أنا قصو قالتها ساعات استماع كان إلا استماع كور وحى سنشن معلومات تابرة إلا يلا معلومات تابرة وتضاين وحين قناة تضاو معلومات waxaan rajeyna marka istamaanka inay noo noqoto istamaanka ugu diyaar garowga fiicnaa hadii la raala ka dhigo waji wanaagsan aan ku dhameeyno horyaalka qaybtiisa hore qof walba oo kubadda cagta ciyaara oo og yahay gooldarada dhibaatada ay leedahay iyo xanuunkeeda dad isjeclaay isku daraysa gooldarada sidoo kale waxaa arkaysaa nin kugu dhaw oo saaxiibkaaga ahaa oo shala kugu riyaaqsanay maanta ku dhahay nin waxa tahay istubada tahay wax jira mateesana tahay gooldarada waxay leedahay inkastoo ay gooldarada sanadihii ka soo horeeyay aan horyaalka heerkan ciyaarayay mar walbana aad la ciyaarayso kooxaha aad kaga tan weyn waxaad ku qasbada inaad bixiso energy kugu badnaa adiga haddii aadan bixinna waxaa la kulmaysaa waa natiijo oo iska cad sababtoo ah gooldarada waa mid ugu dhibaatada badan ee kooxaha oo saameyso kooxda isku xiran oo hadda heerka waxaan ka imaan heerka labaad isku xirnaanteena waxay 100% ciyaari aan badinayna sidoo kale isku xirnaanteena aad u wanaagsaneed insha Allah anaga ma nihin koox oo ka imaatay isugu imaatay kubadda kaliya waxaan arsiday rag oo hal qoys oo kale kaliya waxaan iskahay waxa waa isjecelkaas iyo walaaltinimadaas kaliya inaysan ahayn arjana kubadda cagta inayna saameyso iyo gooldarada laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay ka dhigo ciyaaraha soo socdo ina horyaalka qaybtiisa hore inaan ka korno fooq hore insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo waa maasiin taageerayna kooxda kubadda cagta ee Muqdisho United haddana ay Jazira waxayna soo taageerayaan ilaa heerka saddexaad ee horyaalka shan sano maadaama oo shan sano aan ciyaarayna heerkan koorna ciyaarayna saacate aan ku soo biiray 3 sano aan ciyaarayo macallimiinta inay ciyaartay fara badan ay ciyaarayaan shan sano ay kooxdan leelanayaan taageerayaasha inta soo taageeraya naga horeeyay sida naga horeeyay insha Allah waxaan rajaynayaa ciyaartan inaan ka farxi doono hadii Ilaahay ka dhigo waxaan sidoo kale aan wareysi aan la yeeshtay xidig ka tirsan kooxda kubadda cagta Jazira Sports Club ana xidigaha ajaanibta ee waqtigan ku sugan kooxda kubadda cagta Jazira waxa uu sheegayaa in ay sanadan ay ka rajeynayaan horyaalka heerka koowaad ee dalka in ay meelaha ugu wacan ay ka gaaraan asagoona farta ku fiiqay kulanka maalinimada Brit ee la qaadan doonaan kooxda kubadda cagta LLP Kenya. My name is Agawa Nusa Yaba Darzaga, player for Jazira Sports Club.
I'm a winger, I also play as a midfielder. It has been fantastic to be here in Somalia, Mogadishu precisely. Great people with good culture, have respect for each other. I see great talents everywhere, every corners of Somalia, and I believe the future is bright for the country. Talking about the game for JNU tomorrow, we are going to give our all. We have some great players. Another thing about football, you have to respect your opponent. So we respect JNU as a team. So we're going to come out with all our best. We know we need those points to put us in a good place in the table. The first round has not been so bad. We have put our best because eventually all the big teams we played here, we displayed total football. We made them know that football needs to be played on the ground. And even they know that a team like Jazeera is existing now because the kind of football we play. Great coaching staff, great management, incredible players, fantastic with bright futures. And also the first round has not been so bad. We have tried our best to secure the maximum points we can, and we look forward to having a fantastic second round. I know we're going to bounce back stronger. waxaan sidoo kaleeto aan la hadalnay macalinka labaad ee kooxda kubadda cagta ee Desire Sports Club macalin Cabdixakiin Mire Maxamed oo asaga ku nuucnuucsaday maamulka iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Desire in ay mar walba heel iyo heele ee la taagnaadaan kooxda kubadda cagta ee Desire Sports Club. haddii aan ku hadlo magaca macallimiinta kooxda sanadkan shaqooyin badan ay soo qabteen training badan aan soo sameynay kulankan ugu dambeeyay oo biri aan la dheeri doono JNU waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu guul loogu soo xirmo wareegga koowaad sidoo kale kooxda Jazeera Sports Club waa koox mar walba focus gareysa ama indhaha ku haysa dhalinta yaryar soo kacaysa sida hadda ogtihiin waxaan saxiix cusub la soo sameynay dhalin yaryar oo da'doodu 17 meelaha jirto kooxda Jazeera Sports Club macallimiinteeda iyo maamulkeeda mar walba waxaan u taaganahay inaan jaanis siino dhalinta yaryar da'da soo kacayso si ilaa qaranka Soomaaliya heerarkiisa kala duwan ay waafaqaan marka labaad naadiga waxa uu leeyahay hadaf ama goal uu soo sameeyay sanad bilowgiisa waxaan rajaynaynaa inaan ka dhabayno hadafyadeena qaarar badan oo kamid ah waan ka dhabaynay inta noo dhiman waan ka dhabay doonaa waxa kamid ah inaan kaalmo ugu horeeyo horyaalka ku dhameysano oo kale ama aan horyaalka qaadno waxay kamid tahay hadafyadii aan lahayn sanadka bilowgiisa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan sanadkan wax badan ku soo kordhi doono kooxda haddii noqoto dhan natiijo dhan wajiyo cusub iyo dhan walba ahaataba insha Allah saasaan rajayn doonaa ugu dambeyntii waxaa kooxda kubadda cagta Desire soo bandhigtay laba kamid ah saxiixyadeeda cusub maadaama suuqa kala iibsiga horyaalka heerka koowaad ee dalkan uu furan yahay ee Somali Premier League mid kamid ah xidigaha ay soo bandhigtay ayaa wuxuu hore ugu soo ciyaaray koox ka dhisan wadanka Yemen kooxdaas oo lagu magacaabo Al Hilal waxa uu sheegayaa laacibkani ee ku cusub kooxda kubadda cagta ee Desire ninka lagu magacaabo Ismaaciil Cabduqaadir Idris oo Arab lagu naaneyso horta insha Allah aad oo mahadna maxalla fariiqa aan hadda waxa ka imaaday Yemen marka nin oo waxay arkay ana oo aan dheelay xaafada ku dheelayo kadib naadiga uu wacay macalinka ila xiriiri macalinkana ciyaartay markuu fiiriyay intaas tamaana la almitay ka bacdi na fiicana markuu arkay intuu saxiix oo iga saxiixna aad ugu maasanay Soomaaliya waligeem ku dheelan hadda dhawaa imaaday laakiin Yemen uu dheeli jiray xagga oo ma arkin oo fariiqyaasha marka inta uu maaday mukalla iyo salcaan ka dheeli jiray هذا أنت ماضي وكا سومالي ذلك أنت وديلو أنا جعلها إن شاء الله يدنا وايد سنت هذا سير بي أنا ليجري هذا وكنا سير أنت حمر أنك ديلا أو ماضي ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta Desire ayaa waxa ay leedahay 7 dhibcood oo horyaalka ka ciyaartay 8 kulan oo kulankeeda ugu dambeeyay uu harsan yahay ee la qaadan doonto kooxda kubadda cagta LLB Genyo halyeyga reer Italy Andrea Pirlo ayaa ka hadlay kulanka Champions League ee dhexmari doona kooxaha Juventus iyo waliba Ajax qodobkan waxa eegaya Sucaad Xasan Cali Samara ciyaaryahankii hore kooxda Juventus Andrea Pirlo ayaa xaqiijiyay in Bianconeri ay ku garaaci karto kooxda Ajax Amsterdam wareegasta dhamaadka tartanka UEFA Champions League Juventus ayaa marti u noqon doonta kooxda Ajax 10 bishan Abriil halka kulanka lugta labaad lagu ciyaari doono magaalada Turin
16 isla bishaana. haddaba halyeega kooxda markaasi Juventus Andrea Pirlo ayaa la weydiiyey su'aal ah sida Juventus ay ugu guuleysan karto kooxda Ajax la'aanta Cristiano Ronaldo mar uu waraysi ku bixinayo wargeyska Calcio Mercato, wuxuuna ku jawaab celiyey Juventus waxay u muuqataa koox awood leh la'aanta Cristiano Ronaldo waa ay garaaci kartaa mar walbana waxaa go'aamin kara kooxda magaceeda maadaama xidiga waaweyn ay u ciyaaraan. waxaa rajeynaya in Bianconeri ay guuleysato ayuu yiri Pirlo. dabcan Bianconeri way garaaci kartaa kooxda Ajax xitaa la'aanta Cristiano Ronaldo. intaas kadib halyeeyga kubadda cagta Talyaaniga Pirlo ayaa wuxuu ammaan ugu qubiyey macalinka kooxda Juventus Massimiliano Allegri, waxaana uu yiri Allegri wuxuu muujiyey qiimihiisa sanad kasta, waxa uu sameeyaa horumar, waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu fiican xilligan kubadda cagta ayuu yiri markaasi Pirlo, isagoona u rajiyey kooxda Juventus inay garaacdo naadiga Ajax una gudubto wareegga xiga ee tartanka UEFA Champions League. kooxda United-ka ayaa doonaysa in bedelka Degeyo ay ka dhigto ciyaaryahan John Oblak. Najib ayaa qodobkan inoo eegaya. nadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqeen durba bedelka golayaha kooxdaasi ee David De Gea, waxaana kooxda Man U haatan la xiriirinayaa kooxda Athletic Madrid golayaheeda ee John Oblak iyo sidoo kale golayaha shabaq u wardiya Everton ee lagu magacaabo Jordan Pickford. golayaha Red Devilska David De Gea ayaa la xiriirinayaa inuu ka howleelayo gagada Old Trafford iyadoo lagu soo waramay in Spain uu ku wajahan yahay. United-ka ayaa durba haatan bilowday hadallo ay la furi doonaan bedelka ciyaaryahankan ay diyaariyaan kahor inta uusan furmin xagaaga soo aadan suuqa kaliibsiga ciyaartooyda. John Oblak ayaa ka mid ah golayaasha ugu fiican qaaradda Yurub oo Athletic Madrid u ciyaariya xulka qaranka dalka Slovenia, waxaana uu qayb ka yahay xidigaha Manchester ay xiiseynayaan inay ku bedelaan David De Gea haddii booska Old Trafford uu faarajiyo. waxaa lagu qiimeeyey Oblak adduunlageed gaaraya 85 milyan oo gini. golayaha kooxda Pickford ayaa xidigan heerka caalami Everton haatan ku sugan wuxuu ka mid yahay golayaasha ugu fiican horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee Premier League. waxaa ninkani uu markaasi ka soo dhaqaaqay Southampton 2017, waxaana lagu qiimeeyey golaya Pickford adduunlageed gaaraya 30 milyan oo ganiga sterlinka. kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa doonaysa xidiga kooxda City u ciyaara ee Kevin De Bruyne. qodobkan Imam Shoble ayaa inoo eegaya. Real Madrid ayaa la sheegay inay markaa baadgoob xooggan ku jirto qadka dhexe Manchester City ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne. Zidane ayaa eeganaya in Bernabeu uu ku soo kordhiyay cusub tan iyo markuu ku soo laabtay garoonka Santiago Bernabeu 10 bilood kadib. Manchester United qadkeeda dhexe Paul Pogba iyo garabka Chelsea Eden Hazard ayaa qayb ka ah ciyaartoyda kale oo xiiseynaya Zidane. Diirada lagu magacaabo Real Report waxay warinaysaa in City playmaker De Bruyne uu ku soo baxay liiska ciyaartoyda Real la xilmayo. ninka reer Belgium ayaa hadda heshiiska 4 sano kaga harsan u saxiixay, laakiin 7 jirkan ayaa dhaawacyo markaas ay hayeen iyadoo kooxda Premier League difaacanayso ciyaaraankan saameyn weyn ay si weyn u tabtay. Real ayaa ciyaaraankan ku doonaysa inay ku bixiso 180 milyan ilaa 155 milyan haddii ay kooxda wadaniyiintu ay golaadaan iibka ciyaaryahankan. kooxda reer Spain ee Barcelona ayaa ka hadashay arrin ku saabsan mustaqbalka Camp Nou ee ciyaaryahan Lionel Messi. markale Sucaad Xasan Cali Samara. Messi iyo Suarez ayaa guul soo gaarsiiyay kooxda kubadda cagta Barcelona kulanka ay la ciyaareen adiga Atletico Madrid, waxaana ay kulankaasi ka sameeyeen wacdaro cajiiba. haatan madaxa kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa xaqiijiyay in kooxda ay si weyn uga fakarayaan in heshiis cusub ay ka saxiixdaan ciyaaryahan Lionel Messi. kadib kulankaas Josep Maria Bartomeu ayaa yiri Messi waa laacib aysan ka maarmin kooxda, waxaan rajeynayaa in sanado kale uu nala sii joogo halkan. Messi guulo taariikhi ah ayuu kooxda gaarsiiyey, waxaana qasab nagu ah in heshiiska aan u sii kordhino, waayo waxa uu haystaa waqti uu kooxda kaga caawiyo qaadista koobab badan mustaqbalka, ayuu sii raaciyey madaxa kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu. heshiiska Messi ee Barcelona ayaa dhacaya xagaaga 2021, waxayna Barcelona haatan ka fikiraysaa qaabkii Lionel Messi heshiiska ay ugu kordhin lahayd, iyadoo madaxa kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu uu aad kaga fikiraya laacibkan in uu mar walba ku sii hayo garoonka Camp Nou ay ku ciyaarto kooxda Barcelona. Messi waa mucjisada kubadda cagta, waxaana laga yaabaa haddii loo kordhi waayo heshiis inay u soo gacan haatiyaan kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub, laakiin kooxda Barca ayaaba doonaysa in xidigan ay heshiiskiisa u sii dheereyso si kooxda ugula guuleysto koobab waaweyn.
mahadsanid sucaad. Philip Coutinho ayaa beeniyay inuu isaga tagi doono kooxda Barcelona xilli la sheegay inuu ku dhiban yahay la qabsiga kooxda Barca ee Spain. mar kale Najiib Philip Coutinho oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa gudaanba wuxuu laacibkaasi u beeniyay in uu markaasi ka tagayo gagada ay ku ciyaarto kooxda Barca ee Camp Nou Stadium kadib markii ay soo baxday dhawaan warar sheegaya in kooxaha kala Manchester United iyo kooxda Chelsea inay xiiseynayaan adeega ciyaaryahankani. Coutinho ayaa Camp Nou Stadium xiddiga kaga soo biiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaana ciyaaryahanka kooxda Barcelona lagu soo waramayaa barigii ugu dambeeyay inuu muuqdo mid ku fashilmay gagada Camp Nou Stadium. xiddigan oo wax laga weydiiyay kadib guushii Barca ka gaartay Atletico Madrid ayaa ciyaaryahanka waxa markaas uu ka hadlay arrinka Premier League inuu ku laabanayo. Tan waa xiriiradkii labaad halkan waxaan kula guuleystay koob laakiin mar walba waxaan ahay ciyaaryahan hamile oo markaasi dalab heli kara sida ayuu u sheegay jirada The Mirror. waan jeclahay inaan ka ciyaaro Spain waxaan joogaa kooxdii ugu fiicneed Spain ayuu laacibkaas markaa yidhi. madaxda kooxda Barcelona ayuu sidoo kale xiddiga markaasi aad ugu mahadceliyay. soo noqoshada Premier League hadda ma ahan mid ku haboon qorsheyga ayuu yidhi ciyaaryahanka lagu magacaabo Coutinho oo hoos u dhigay wararka ku aadan in xiddigan heerka caalami uu ku wajahan yahay dhinaca IPL-ka. Philip Coutinho ayaa Barcelona kula soo wareegtay dul lacageed gaaraya 142 milyan oo ganiga Sarleenka 15 bilood ka hor waxaana uu xiriiradkan ku soo bilowday kulamada liigaha dalka Spain 19 kulan. guud ahaan qodobka ayaana u dambeeyay warkii sportiska oo aad ka daawanayseen Astaan Sports. Sida warkaygu uu sheego waxay ka eegan karaan page internetka aynu ku leenahay astaansports.com iyo astaansports.net. waad ku mahadsantihiin la socoshada iyo daawashada barnaamijyada Astaan Sports. nabadgelyo, bye bye.